السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عروري sheeko xiiso leh ayaan baranaynaa maanta. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa dabacadii iyo canabkii qaraaraa. Sheekadan sidan ay ku bilaabanaysaa. Dabaco ayaa maalin waxay soo martay geedo canab ah oo canab tiro badan ay ka soo laalaadaan geedaha. Canabka meesha ku yaalay ayaa wuxuu ahaa canab aad u bislaaday oo sida u barbirqaya ay yaabaysid. Dabacadiina aad iyo aad ay u jeclayd inay cunto. Afkeedu dhan waxaa ka soo daatay dhareer ayadoo rabtay inay ka dharagto oo cunto canabkaasi aadka u fiican. Indhaheed ay ku taagtay si ay u hesho canabkaas, laakiin canabka ayaa wuxuu ku yaalay geed aad u dheer. Dabacadana waxay ahayd inay kor u booddo si ay u gaarto canabka u soo goosato. Markaas waxay isku dayday hal mar kor inay u booddo, laakiin waa gaari weysay. Kadib gadaal ay u baxday oo hal mar ay u soo orday oo isku dayday inay hal mar zaa'id u booddo, taasoo ka badan intii markii hore ay booday. Laakiin nasiib daro mar labaad dhulka ay ku dhacday ayadoo aan gaarin canabkii macaanaa oo meesha ku yaalay. Kadib dabacadii way fariisatay, waxayna bilowday inay fiiriso oo si xun u eegto canabkii kor ka soo laalaaday. Markaasaa waxay tiri, alla doqonsaniya, alla dabalsaniya, ayay tiri dabacadii. Maxaan isku daalinayaa oo canabkaas xun aan isku waalayaa? Si kastay ahaataba waa canab xun oo qaraar ah oo wax faa'iido uu leeyahay aan jirin. Markaasay dabacadii meesha ka dhaqaaqday ayadoo aad u xanaaqsan. Caruurey, moraalka sheekadan aan ka baranayaa waxay tahay, Soomaalida waxay dhahdaa tukulish timir gaari waayey qaraar waaye ayuu dhahay. Taas macnaheedu waxay tahay in dadka qaar aysan rabin in ay dadaal badan bixiyaan oo hawl badan ay qabtaan siday u gaaraan danaha ay leeyihiin. Kadib ayaa markaas waxay iska dhigaan in waxaas aysan rabin inay gaaraan heerkaas ama waxaas ay adag tahay in la helo inay raadiyaan. Sababtoo ah maadaama ay ku adkaatay ama aysan rabin inay dadaal badan bixiyaan, ayaa dadka kale oo dadaalkaas bixiya ayaa waxay dhahaan wax faa'iido uu leeyahay arrintaas ma jiro, iyo waxaas oo ay sameysteen dadkaasi wax qiimo uu leeyahay ma jiro. Taas marka macnaheedu waxay tahay laysinimo oo ayaga dhankooda ah oo aysan rabin inay dadaal badan bixiyaan si ay ku gaaraan waxaas fiican oo ay helaan. Dabacadan hadda waxay tilmaamaysaa canabkaas macaan oo bislaaday oo aadka u macaan oo aadka u carfay ayaa waxay ku tiri waa canab qaraar oo xun, laakiin waa been. Maadaama ay gaari weysay ayaa waxay bilowday in ay yasto canabkaas ayna ku tilmaanto wax qaraar ah. Sida runta marka loo eegana canabkaas qaraar ma ah, waa canab aad u macaan. Marka caruurey, hala dadaalo oo si fiican haloo dadaalo. Wax walbo haddii lagu dadaalo waa la gaari karaa. In excuse aad u samayso maadaama aad gaari weysay wax fiican oo qiimo leh ma ahan. Caruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay. Ilaa sheekada dambe aan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.